السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وولاشين أمومنا يا مركلة ولا ليال عاود إلهي سبحانه وتعالى وقرأ للنقضة وحان ربا إنان وحير أن كوذاقنو qaabka caruurta iyo waxyaabaha ay caruurtu fiirsadaan maxaa impact ah oo ay ku leeyihiin caruurta koritaankeeda maskaxiyan markii loo fiiriyo cunug walba oo wax daawanaya waxa uu daawanayo waxaa muhiim ah in la ogaado ama waxa uu ku ciyaarayo haday video game tahay in la ogaado video game-kaasi mayahay video game u qalmaa ilmaha da'diisa haduu yahay show ama TV ama waxa uu daawanayo program uu yahay waxa uu daawanayo cunuga iyo da'diisa ma isu qalmaan waa su'aasha labaad iyadana caawa aan rabo inaan ka jawaabo waxay tahay age groupka age walba maxaa loogu talagalay way u baahan yihiin inay mataqaanaa daawadaan ama laga digtoonaado oo age walba ka reeban inay mataqaanaa ay daawadaan sidee ku kala garan karnaa waxyaabaha ilmaha healthiga u ah oo ay daawan karaan iyo waxyaabaha ilmaha aan caafimaadka ugu jirin u ah ilmaha inay maskaxdooda qulubtooda ama akhlaaqdooda ay dhaawacdo TV show walba ama cartoon walba oo ilmahaagu uu daawanayo waxa ogaataa walaashayda muslimada ahay in uu diraayo message inuu diraayo oo ilmahaaga uu la qaybsanayo message inuu la qaybsanayo fariin inuu diraayo oo ilmahaas waxaan uu fiirsanayo maskaxdiisa ay ku koreyso oo waxyaabo uu kala baxayo waxyaabaha uu kala baxayana ay kamid noqonayso dhaqankiisa ma aha wax walba intaasoo kun wax uu daawanayo year by year waxay kamid yihiin koritaanka noloshiisa kamid yihiin waxayna ka qayb qaadan doonaan hadhowti role play waxay ka noqon doonaan cunugaas shakhsiyadiisa waxyaabaha uu jeclaanayo waxyaabaha uu nacayo waxyaabaha uu ku durkaayo waxyaabaha uu ka durkaayo ayay intaba mataqaanaa ay ka qayb qaadan doontaa sidaas aawadeed ayay waxay noogu tahay important maasha Allah tabaarakallah ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله تبارك الله ولا ليال اللهم صل على محمد haddaba waxaan kor istaagaynaa magacyada iyo waxyaabaha ku kala qoran si aan u kala garanno waxa ilmaha mataqaanaa da'diisa ku fiican in uu daawado ama inuu dheelo si aan u kala garanno haddaba caruurta yaryar mataqaanaa caruurta markay aad u yaryar yihiin 1 sano iyo 7 sano inta u dhaxayso waxa loogu talagalay in ay fiirsadaan cartoonada loo yaqaano oo TVY oo ah mataqaanaa ilmaha yaryar waxyaabaha ilmaha yaryarna ka hadla mar walbana waxa fiican cunuga inuusan ka badsanin 30 daqiiqo inuusan ka badsanin ilmaha ka yar 1 sanana inta kala carari kartaan in uu wax fiirsado oo screen TV ama waxaas uu hor fariisto biidnillah kala carara waliba anaga Allahumma salli ala Muhammad ummadeena waxa u roon in cunugaas mataqaanaa uu dhageysto quraan fara badan taas oo inta uu caloosha ku jiro ilaa iyo mataqaanaa sanadka hore waligeed inuu dhageysto way afacaysaa laakiin meeshii uu cunuga uu durba kala qabsan lahaa taleefanka inuu ku ciyaaro loo dhiibo lagu madadaaliyo ama inuu wax fiirsado ilmaha 12 bilood ka yar ayagu kuma jiraan xadiga laga hadlayo laakiin wixii intaas mataqaanaa ka badan in ay 30 daqiiqo ay fiirsadaan TVY oo ah ma aha hal TV oo go'an ma aha waxa aan tilmaamayo program walba ama TV walba mid ilmaha u qalanta oo aan lahayn waxyaabo aan u soo gudbinaynin akhlaaqda diinta islaamka ku xun ama mataqaanaa indhihiisa u daran oo ama qof la dilaayo qof la qalaayo dhiig daadanayo dad qaawan kelmado xun oo caay ah iyo waxyaabo la isticmaalayo oo dhan in lagala fogaado marka programyada oo TVY oo age-kaas loogu talagalay ee saxda ah intaba waa laga reebay oo kuma jiraan markaas haddana waxaa soo raacaya
oo da'daas waxaa ku xigaya da'da cunuga markuu gaaro 7 sano 7 sano waxa uu daawan karaa ileen da' walba waxbaa loogu talagalay oo cunuga marka uu da'diisa intaas ay tahay marka uu dhaafo waxyaabahan oo cunuga yar 2 jirka ah 3 jirka ah 4 jirka ah uu xiiseynayo waa ka weynaaday cunuga maxaa la yiraahdaa 7 jirka ah uma noqonayso wax oo asaga salin u ah oo uu comfortable ku dareemo oo uu ku qanco uma noqonayso marka isagana wuxuu u baahan yahay waxa mataqaanaa da'diisa ah marka that's why video game-yada caruurta ay ku ciyaaraan hadii aad tahay qof iibsada cajaladahan caruurta ay ku ciyaaraan video gameska ah ama kaartuunada ah ama cable-ka gurigaaga waxa ka soo galayo waxa ka fiirsaa Y7 waxaana loogu talagalay ilmaha da'doodu ay 7 sano iyo wixii ka weyn ay tahay ayaa loogu talagalay ma sha Allah tabarakallah haddaba waxaa soo raaca oo isagana second step ka imaanaya BG BG-ga waxaa loogu talagalay inuu ilmaha uu ka fiiriyo waalidka inuu ka fiiriyo oo mataqaana waalidka uu guide gareeyo ayaa mataqaana loogu talagalay sababtoo ah wuxuu ka sheekeynayaa oo wuxuu keeni karaa sheekooyin dhacdooyin caadi ah oo ama qiyaali ah oo wuxuu keeni karaa mararka qaarkood wax yar oo dagaal ah leh wax yar oo mataqaana kelmado yar yar oo mataqaana aflagaada lahaan kara marka waxyaabaha ilmaha laga fiirinayo waxay tahay message-ka uu gudbinayo muxuu yahay waxa uu ka sheekeynayo maxay tahay sheekada maxay ku wajahan tahay waxa uu daawanayo wax kasta oo la daawadaa waa sheekadaas waxa ay ku wajahan tahay iyo waxa ay ka hadlayso in aan fahmno markaas waxyaabaha noocaas ka dhex imaan kara oo lagu soo dari karaa marka waa inuu waalidka uu la socdo hadba mataqaana stepka uu cunuga uu qaadayo oo uu og yahay cunuga waxa uu daawanayo ayaa aad iyo aad muhiim u ah marxaladaas marka uu kasii gudbo ama video game ha ahaato waxaan rabaa inaad cajaladaha video game-yada ilmaha u iibinaysaan in aad ka fiirisaan qolofka korkiisa inaad ka fiirisaan ujeedadeeda ugu weyn taas weeyaan maasha Allah tabarakallah si aan u ogaano waxa aan gacanteena aan ku gadayno dhaawac intee la eego cunuga uu geysan karaa TV 14 da'daas loogu talagalay TV 14 ka loogu talagalay oo ah mataqaana cunuga 14 sano iyo wixii ka weyn ayaa loogu talagalay 14 sano iyo wixii ka weyn laftirkeeda waxay tahay marka in waalidka wali uu guide gareeyo oo gurigaaga iyo ilmahaaga midna aadan u ogolaanin maxaa la yiraahdaa video game dhiig badan daadinayo dagaal badan sameynayo naxdin aan lahayn cabsi aan lahayn xishood aan lahayn waxaas oo dhan cunuga yar ama wiilka yar daawanayo waxa laga yaabaa sidii inuu agti gareeyo in uu ka maqlo ama mataqaana uu ka barto inaan qofka la dhageysanin inaan la xurmeynin in qofka laga qaylo dheeraado in waxa aad rabto gaar waxa aad rabto samee waxa aad rabto ku hadal lagulama hadli karo naftaada adaa iskale adaa is xukuma so on and on marka waxay diraan waxyaabo noocaas ah oo fara badan iyo ilmaha u diraan marka ilmaha daawadana cunug walba waxa uu daawado waxa uu jecel yahay in uu karakterkaas oo kale uu iska dhigo inuu karakterkaas waxa uu sameynayo inuu sameeyo inuu erayo karakterkaas kamid ah haduusan afka ka dhigin xataa actionkii ama eraygii in uu la qurux badnaado marka that is why baan mataqaana ay tahay in aan ka digtoonaano oon aad iyo aad aan u fiirino waxyaabaha guryaheena aan soo gelinayno oo hadhow noqonayso wax adiga iyo ilmahaagii dib kugu soo noqda ilmahaagii akhlaaqdiisii ama waxaa laga yaabaa marxaladan oo kale cunuga marka uu ku jiro geemyada qaar inay mataqaana wax aan islamically aan ku fiicnayn oo kale gameka dhexdiisa uu ka soo baxo laakiin adi marka aad gadaysay hooyo ama aabo labadiinaba fariinta waa idiin dirayaa marka aad gadaysaan oo aan gadanayno waxa laga yaabaa inay dusha waxba kaga soo warnayn laakiin ciyaartaas la ciyaarayo marka uu cabaar socdo uu ka soo hoos baxayo waxyaaba akhlaaqiyaadka aan mataqaana aan ku haboonayn inuu ka soo baxayo اللهم صل على محمد كاس دبقة كله كسر حكت أيها وحيد هاي TVMA
oo ah majuur ayaa loogu talagalay qof weyn oo majuur ah oo waxaan inuu daawanayo ma ogiye wax aan ka qaadanayna loogu talagalay wax walba marka you name it wax walba oo qaab daran baa kasoo bixi karo wax ka reebanna ma jirto ama dad qaawan ha ahaadeen ama TV ha ahaado oo wax la fiirsanayo ha ahaado ama ha ahaado game la ciyaarayo ha ahaado laakiin haddaba haddii MA uu yahay wax ka reeban ma jiro marka ruuxa caruurta yaryar haysta ama ruuxa ilmaha haysta in uu waxyaabaha noocaas ah gurigiisa ama shakhsiyadiisa ay soo gasho ama ilmahaagu uu barto in aan aad iyo aad uga digtoonaano oo waliba calaamadan weyn ee M-ta ah video gameyada aad ugu qoran tahay inaa mataqaanaa aa ka fiirisaan qolofka kore ee video gameka inta aadan gadanin in aa mataqaanaa aa ka fiiriso اللهم صل على محمد haddaba waxyaabaha ay video gameyada iyo tviyada showyada waxyaabahaas oo dhan ayaa waxay tahay waxyaabaha ilmaha ay ka helayaan oo dhinaca dhibaateynaysa waxaa kamid ah violence fara badan cunuga inuu galo dagaal wixii inuu caadi uu la noqdo xabadaha dhacaya dhiiga daadanaya qofka madaxa laga jaraayo wax allaale iyo wax mataqaanaa indhaha dhan aan u roonayn oo qalbada aan u roonayn isla mar ahaantaasna wuxuu isticmaalayaa erayo aad iyo aad u qalafsan cay ah naxariis darro ah intaba mataqaanaa way isticmaalaan marka saas baysan ilmaha yar inuu fiirsado waysan ugu ahayn munaasab aysan ugu ahayn oo ilmahaas yar waxaa laga yaabaa waxa uu meeshan uu ka arko in uu ama isu ekeysiiyo ama isticmaalo ama ila qurux badnaato ama si uu u isticmaalo tusaalayaal badan oo waan heli karay kaatuunada mataqaanaa ilmaha ahayn in ay fiirsadaan waxaan soo qaatay Family Guy xaqiiqdii barnaamijkiisa oo dhan iyo waxa uu wadaba mataqaanaa ilmaha yaryar kuma aha cartoon waaye marka aragtid waa cartoon laakiin haddana message-ka uu gudbinayo xaqiiqdii ma aha cartoon sawirada aan hadda meesha aan noo soo saaray waa kuwii mataqaanaa ugu sahlanaa laakiin xaqiiqdii haddii aa gudaha aa usii gasho cartoonna ma aha waxa mataqaanaa uu ka hadlayana wax ilmo ama wax qof macquul gal ah dhageysan karo ma aha marka saas aawadeed in aan mataqaanaa waxa la fiirsanayo iyo meesha lagu fiirsanayo iyo luqadda la adeegsanayo intaba ilmaha ee koritaankiisa ee qayb weyn bay ka qaadataa in aanan u arkin in uu video game yahay oo uu cayaar yahay cayaarta ilmaha waa u fiican tahay laakiin waa ina ilmihii aan u dooranaa cayaar safe ah waa inaan u dooranaa waxa uu fiirsanayo wax safe waa inaan u dooranaa mar walbana waxyaabaha wax meel walbuu ka heli karaa wuxuu ka heli karaa TV-gii ka heli karaa telefonkii ka heli karaa desktopkii ka heli karaa wax alaale iyo wixii internet leh oo dhan baa mataqaanaa message-yadan gudbin kara ayagoo ay ku qoran tahay iyo ayagoo aysan ku qornaynba sida mataqaanaa waxyaabaha social mediaha YouTube-ka badanaa hadii uu yahay video game hadii uu yahay oo video game-ka mataqaanaa company-ga iskale waa ku qasban yahay inuu da'walbi wixii ugu talagalay uu ku qoro laakiin YouTube-yada iyo social mediaha wax qoraal ah lama socdo waa shaqsi caadi ah oo madax banaan oo free speech ku hadlayo marka ayagana si gooni ah inaa mataqaanaa aan ilmaheena ooga ilaashano biidnillaahi baari waa ina aan sameynaa calaamadahana mar walba waa in aan ku baraarugsanaanaa oo aan fiirinaa waxa aan gadaayo waxa aan gurigeyga keenay waxa ilmaheyga aan la qaybsaday muxuu yahay su-aashaas mar walba waa in anaga si gooni ah ay noogu taagnaataa biidnillaahi baari dhammaan walaalahay dhammaantiinba aad iyo aad baan idin salaamayaa mar labaad iyo mar saddexaad assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu